siisaa barxaaladda maamulka iyo ilaa iyo iminka waxyaabaha aad qabateen بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صادق marka hore waxaan idinku mahad celinayaa dhammaanba shaqaalaha iyo inta raadiyo waxaan idaacadda Kalsan telefishinka Kalsan kuwaas oo aan ugu hambalyeynayo sida wanaagsan ay ugu shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed ugana hawlgalaan horumarkeeda iyo nabadda waan idinku mahad celinayaa marka labaad waxa weeye aan ku saxayaa khaatumo ma aha maamul goboleed waa dawlad goboleed marka hore saa horta haddii aad insha Allah marka labaad maamulkan waa la dhisay markii la dhisay dawlad goboleedka khaatumo dabcan waxaa loo dhisay inuu wax ka qabto xaaladda deegaanka khaatumo state oo dadka qaarkiina u yaqaaniin SSC u yaqaaniin gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayuu loo sameeyey waxaana keentay run ahaantii baahi markaa timid oo ahayd in qoliyo ka tirsan waqooyi ama Hargeysa ay ku soo duuleen gobolka qaybo ka tirsan gobolkaana ay xoog ku qabsadeen oo ciidamadoodu gacanta ku qabsadeen dabeedna ay dhibaato badan halka ka dhacday taasaa waxaa keentay marka in dadka reer Khaatumo arrinta ay ka dhiidhiyeen doorna ay bideen inay sameeyaan dawlad goboleedkaas la sameeyey saddex gol uu ka kooban yahay golaha sare ee dhaqanka golaha dawladda iyo golo la yiraahdo G11 oo ah dad aqoon-yahano ah oo inta badan talada ka geysta waxay qabteen waxaad u fara badan waxa kamid ah dawladda dhexe inay xiriir wanaagsan la sameeyeen ayna ka heleen aqoonsigii loo baahnaa ee dawlad goboleed uga baahnaa inay ka mid noqoto federaalka dawladda dhexe ee Soomaaliya inay ka mid noqoto waxay gaar isu taagtay waxbarashadooda oo awal ka tirsanaan jiray labada maamul goboleed degmooyinka dhinacyada ka xiga ee Puntland iyo Somaliland oo waxbarashadooda ay gaar u tahay waxay door ka soo gooyeen inay sameeyaan wasaaradaha dawladda dhexe sida wasaaradda maaliyadda wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda warfaafinta dhammaanba hawlihii ka dhaxeeyey in ay dhammaystireen oo laga hirgelinayo deegaanka Khaatumo laga hirgelinayo waxay qabteen in wafuud ay u kala diraan oo dibadaha sida isimada iyo maamulka oo wada socda oo ay mareen dalalka dariska Afrika badankooda dawladda dhexe ay mareen UN-ka hay'adaha samafalka kuwa daneeya Soomaaliya kuwaasoo ay gaarsiinayeen risaaladooda ama Khaatumo waxa ay tahay ay dawlad ahaan ay sameeyeen maxamed anagoo googoosan doona hadalka ma kula tahay in tan iyo xilligii la asaasay inaad himilooyinkii ujeedadii Khaatumo loo asaasay in la gaaray haa baan leeyahay sababtu waxa weeye Khaatumo hadda wuxuu dhisan yahay dawlad goboleedkaas wuxuu dhisan yahay muddo sanad iyo 6 bilood waa muddo yar oo kooban waa aad u yar marka la eego arrimaha siyaasadda ee dawlad goboleedyadu ay ku hana qaadaan iyaday saatay haddana wax badan ayay sameeyeen gudaha iyo dibadba wax badanina u harsan yihiin waxayna diyaar u tahay inay dhammaystirto wixii dadkooda uga baahnayeen maxamed sida la socotid hadda wasaaraddaada kale haddaan soo qaadan waxaan tahay wasiirka amniga ahay waa artay deegaamadaas ammaanka ma jiro dhibaato badan baa marar badan ka dhacda ama dhinaca Somaliland haata ama dhinaca Puntland ama ciidanada laftigeeda Khaatumo ay tahay dhaqaalaad raadinaysan waxa tiraan dhaqaale xataa uma hayno waxyaabo badan oo calqalada jira dad badan oo xataa idin raaxsaneen baa jira waxyaabahaas oo dhan soo lama oran karo maxamed waxaad doodoobaysan waxba ka jirin waxaad doonaysaan kaliya magac iyo maksabad aad ku raadsataan waa su'aal aad u wanaagsan weeye waxaan kuu sheegayaa marka u horeysa waa run magaala madaxda Khaatumo state ee Laascaanood waa la haystaa qoliyahaas SNM ayaa haysta oo gacanta ku haya xoog bayna ku qabsadeen xoog bayna ku joogaan waxaan u sheegaynaa marka cid walba in Soomaalidu waxay ku maamaadaa wixii xoog lagaaga qaado xoogun baa lagu soo ceshadaa Khaatumo sideedaba annagu waxaan u samaysanahay inaanu nabadgelyo helo darisadana aanu nabadgelyo kula noolaano wada jir iyo kalsami iyo wada noolaansho baan horta doonaynaa inaanu dadka kula noolaano marka u horeysa haddiise la waayo oo xoog wax lagaaga qaado dee nin baa yidhi baa la yidhi miyaadan wadaad ahayn oo markaasuu wadaad u arhay laakiin ka ikhwaana u yidhaahda ma yihi nabadgelyo waa jecel lahay laakiin gabcaha ma laabanayno
qoladaa waxaan in badan kula talinay inay baneeyaan halkaas oo ciidamadooda ka qaataan laakiin weli ma yeelin. maxamed kaa dhex galo wax badan baad ka hadasheen laascaanood magaalo madaxdiinina weeye sida aad hore u sheegteen waxaad ku celiseen waa xoog baana looga haystaa dadka deegaanku waxay degan yihiin nabad bay u degan yihiin somalilandna waa taageersan yihiin somalilandna waa ka mid yihiin waxa idiin muuqday xooggaa sheegaysaan waa maxay horta sideedaba waxaynu ogaanaa kelimada somaliland la yidhaahdo waa kelimo horta isticmaalkii bixiyey kelimo dhaqanka soomaaliyeed ama maabka soomaaliyeed ku jirta horta ma ahayn isticmaalkii iska tig macnaheeduna waxaa weeye waa dhulkii soomaaliya weeye isticmaalkii iska tig ninna dardaaran uma samayno ma odhanin haddaan tegey adaa isticmaalka meesha ka sii wada dhulku wuu jiray dadkuna way jiri jireen waxaa la odhan jiray caro habar jeclo caro dhulbahante caro warsangeli caro ogaadeen caro saasaa carraa la odhan jiray qoladan marka waxaa ka luntay magicii ay raadinsan lahaayeen iyo dhulkii ay lahaayeen baa ka lumay iyadoo taasna macnaheedu waxaa weeye caro oo dhul ah balaas haddaynu ku darro habar haddaynu ku darro way heli lahaayeen dhulkoodu waxa uu yahay way heli kari lahaayeen sababta waxay ahaan lahayd markaynu caro iyo habar isku darro dee caro habar yoonis bay noqon lahayd aan kusoo noqonno su-aasheedii ahayd laascaanood waan ku wadaa saadiq laascaanood marka waxaa weeye reer khaatuma iska leh idin lama leh waxa qura aanu xeerinayni sida aad u sheegtay dhulku nabadgelyo u degayay in nabadgelyo wax lagu dhameeyo aanu xeerinayni soo reer khaatumo haddana ma joogaan reer khaatumo way joogaan waxaan raadinaynaa oo haysta oo xoog ku yimid dadaan reer khaatumo ahayn ee hargeysa iyo burco ka soo duulay oo aad og tihiin ayaa haysta oo xoog ku haysta oo kufsiga iyo dhaca iyo dilka iyo barakicinta iyo xumaanta lagula kacaya maalin walba aad ogtihiin oo telefishinada kala socotaan soo maxamed maaha dadkii deegaanka hore u deganaa ilaa nina soomaaliya intii dagaalada sokeeye ay ka jireen waa la isbartay qabiilna qabiil xoog kuma haysto hase yeeshee meeshaas qabyaalad kama jirto system iyo nidaam iyo maamul baa ka jira dadkuna way raacsan yihiin waad u aragtay inta badan maamuladuna way ka hadlaan ama puntland ama somaliland ha ka hadlo doorashooyinkii baa ka dhacay dadka reer somaliland ee hadda ayagu sheeganaya ee laascaanood joogana waxay dadkii ka qaybgalayay shirkii somaliland lagu dhisay ma waxyaabahaas oo dhan ba maxamed saadiq waxaad moodaa run ahaantii arrimuhu sidaa loo sharxaya inaynu ahayn waxaad ka soo qaadaa sideeda banaanba haddii lagu yihahdo shir baa ka dhacay ama waxaa ka dhacay waxa la yidhaahdo doorashooyin waa waxyaalaha musayifka ee dadka debadaha jooga iyo maxay haytoy iyo wasaa'il iclaamka iyo meediyaha dadka lagu qalda weeyey dhulkan khaatuma iskale dadka joogaana waa reer khaatumo dadka haystana xoog baa lagu haystaa magaalada laascaanood ayaa lagu haystaa xooggaasina wuxuu noqon doonaa mid ku soo dhammaada aakhirka u dambeeya waxa ay doonayaan dadka iskale meeshuu noqon doonaa haddii alla ammaanka markay soo noqoto aan ku celina si kale aan hadalka u dhigno waxaad sheegtay in aad ammaan aad rabtaa inaad wax ku dhammaysaan mar badanna aad ka hadasheen arrinta wada hadalka ka wadasheen maamulada ama somaliland ha ahaato ama puntland ha ahaato oo si nabad lagu wada noolaado ama ciddii laascaanood joogta ay ka baxdo sida hadalka u dhis haddaan kuu raaco haddii dadka weli rabitaan ay rabaan mar kastana ay ka hadlayaan siyaasiyiintoodana ay leeyihiin annagu waxaan nahay dad deegaankaas iyo dowladda somaliland ku biiray oo hore go-aan u qaatay isla markaana soomaaliyaba ka tagnay ma weli waxaad ku sii adeegtihiin inaad ka daba tagtaan oo arrintan dib u soo celisaan heshiisyadii hore Soomaaliya marka inaad ka baxaysaan horta wax heshiisa oo aanu kula galay inaanu Soomaali ka go'on horta ma jiro sida banaanba talabaad waxa weeye oo meesha yaala annaga waxa naga dhaxeeya ma aha dhul ma aha dhulkaygii waa lagu soo dulay xoog baa lagu haystaa horeyna waa kugu sheegay wixii xoog lagaaga qaado xoogun baa lagu soo celiyaa dadka meesha degan ee dhulka ku nool waa khaatumo waxaanu u dhimanaynaa oo annagu aanu u dhimanaynaa oo maalin walbana lagu dilayaa oo SNM ku dilaysaa dadka uu ku soo duulaya waa midnimada ummadda Soomaaliyeed weey wax kala go'ayaana ma jiraan Soomaali waa mid mabda'ana lama nihin sharcina lama nihin dadna lama nihin dhaqanna lama lihin hagaag ammaanka haddii dadka waxay kala dhaxayaan si ammaan ah wada hadlaysaan oo nidaamkii aad soo celinaysaan aad ku wada noolaan jirtaan ka hor Soomaaliya iyo kadib iyo dagaalada ka marka dhacay kadib waxa jira xeer beegta iyo arrimo badan oo laga wada hadli jiray marna ma ogolaanaysaan inaad miiska hadalka soo fariistaan si aad wax badan aad u xeelaysaan dadkaad ka naxayso leedahay waana laga xoogay oo ammaan darre ku nool yihiin ammaankaas aad sheegtay adiga laftiga ammaan darre aad bilaabay asaadiqow gurigaaga haddii nin soo galo oo uu sariirtaada ku fadhiisto
kelimada qura kuu banaani waxaa weeye inaad tahdo iiga baxa laakiin hadduu ku ka bixi maayo aynu ku wada hadallo taa macnaheedu waxaa weeye inuu dee dhulkaagii qaatay gurigaagiina qaatay qoladaas reer waqooyi ama reer hargeysa waxa qura aanu ku wada hadli karnaa waxaa weeye ciidamada ay khasabka ku qabsadeen laascaanood inay kala baxaan marka ay ka baxaan ee dhulka reer khaatumo aan askari quri kaga hadhin wada hadal waa ogolaanayna waana soo fadhiisanaynaa nabadgelyana waa doonaynaa xasiloonina waa doonaynaa deris wanaagna waa doonaynaa laakiin hal askari intuu kaga jiro oo uu joogo dhulka ama ciidda reer khaatumo wax wada hadala oona dhex maray oo aan isugu imanayna ma jiro haba yaraata maxamed si kalena haddana su-aal ku weydiiyo de maamulkan hadda khaatumo ama sidaa u dhigtaba dowladdan khaatumo aad asaasteen rag gaara ayaa ku shaqaysta magacaa wata dadku uma dhama waa lagu kala aragdudoon yahay siyaasiyiinta waaweyn ee qaarkood kasoo jeeda deegaankaas waxay qaarkood joogaan somaliland kuwii wax ka dhisay baa somaliland tegey ciidamada maalin kasta waa baxan idinku laftigeena meel cidla waxba kuma haysaan baa lalagu xantaa waxaasoo dhan dadka saa ugu qancinaysaa waxaan ugu qancinaynaa annagu ma jiro dibadda kuma noolin ee waxaanu ku noolahay deegaanka khaatumaanu ku noolahay cid waliba waa og tahay maamul kasta ama dowlad kastaoo jiraana mucaarad bay leeyihiin qolyahaa la jira ma inkirsanin oo way jiraan dad ka tirsan deegaanka reer khaatumo oo ku nool hargeysa oo weliba ka haya mansab ka haya ama garowga joogo mansab ka haya waa dad shaqo tegey wey wuu shaqo tegey qofkaasi hadduu shaqo tegeyna sidaa halkan baa aad uga shaqaysay ee iminka intaad uga soo shaqo tagtay deegaankii soomaaliya halkan aad shaqo uga raadsatay bay u shaqo tageen ciddii shaqo siisaa way bannaan tahay laakiin talada khaatumo iyagu shaqo kuma leh wuu ka tegey wuu ka shaqo tegey mucaarid buu ku noqday cadow buu ku noqday isaga damiirkiisa ayaa taa siiyey laakiin khaatumo way dhaqan tahay cid ku shaqaysataana ma jirto maamul bay leedahay wasiiray leedahay degaan bay leedahay madaxweyneyaal bay leedahay isimay leedahay siyaasi bay leedahay aqoon-yahan bay leedahay waa dowlad goboleed dhisan dhammeeyey wixii looga baahnaa dowlad goboleed ciddii caayaysa ciddii wax ka sheegaysaana dee waa u furanta waa lays caaya waana lays mucaarada wagaag hadda 1 sano iyo 5 bilood baa jirtaan maxaad oran kartaa ummadda ku dhegaysanaysa ama ku daawanaysa aad oranka ku faani kartaa waxaas iyo waxaas iyo waxaasan qabanay oo amar khaatu soo si aad dadka ay sheegaysay ugu garowsadaan waxaad waa su'aal wanaagsan wey dowlad goboleedka khaatumo muddadii uu jiray ee sanad iyo 6 bilooda loogu talagalay wuu dhammaaday ku meel gaar buu ahaa nidaamkaas 3 madaxweyne lahaa gole wasiir lahaa gole sare oo dhaqan buu lahaa gole la taliyaal odayaal buu lahaa wuu dhammaaday waxaanu u diyaarinay barnaamijkii dastuurkii baan u diyaarinay xeer hoosaadkii baanu u diyaarinay baarlamaankii baanu u diyaarinay waxaanu u diyaarinay maamulkii iyo adeegii looga baahnaa maamul goboleed ama dowlad goboleed looga baahnaa baan u diyaarinay waxaanu haddana diyaar u nahay in aanu annagu xilkayaga ilaa madaxweyne ilaa iyo inta ka hooseysa inaanu xilkii wareejinno shirweynaa la qabanaya haddii aan laydmo sida ugu dhaqsaha badan oo reer khaatumo isugu imanayaan shirweynaha waxaa lagu dooran doonaa hal madaxweyne meeshii aanu 3 madaxweyne aanu lahayn oo ku meel gaara hal madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen baa lagu dooran doonaa insha allah sida dastuurka iyagu sheegayo ama nidaamka dowligii uu yahay sidaas bay ku dhammaan doontaa insha allah shirkaana la isugu iman doonaa kaasaanuna ku wareejin doonaa maamulka iyagii hore maamulka cusub ee dhalanaya sidee baad ammaan ku raadinaysaan marka haddii puntland ayna nabad la ahayn somaliland aysan nabad lahayn waa su-aal meesha ku jirta horta sida yadaba annaga puntland maamulka ayaanu ishaynaa ee dadka isma hayno dadku waa dadaanu wada dhalanay dhiig iyo dhaqan baa nalaga dhexeeya degaan baa naga dhexeeya waxa quri aanu ishaynaa oo keliya waxa weeye waa maamulkaas jira ee iminka meesha ka jiraana isaguna wuu iska soconaya haddii aan laydmo waanu heshiin doonaa waxaanuna ku heshiin doonaa haddii aan laydmo in annaguna aanu u aqoonsano puntland inay yihiin iyana ay u aqoonsadaan inaanu nahay khaatumo state waxa qurihee dhibaatadu naga dhexaysa ama shacab ha noqoto ama maamul ha noqotee waa qolada tan hargeysa ka soo duushay wey iyaguna way sixi doonaan ama way hagaajin doonaan dabeecaddooda iyo maamulkooda wasiirka amniga tahay amni baa sheegaysa waxaad hadda qiraysaa in dad kufsi iyo xoog iyo dhib lagu hayo haddii baad amni sheeganayso maxaa wax uga qaban weye waa su-aal wanaagsan waanu ka qabannay wax badan baanu ka qabannay wax aad u fara badan baanu ka qabannay dhibaatooyinka dadka iyaga haysta wax badan baan ka qabannay wax badanna waanu ka qaban doonaa
waanuna dhammaystiraynaa wax ka qabashadooda iyo soo afjaridda dhibaatada dadka iyaga ay ku hayaan SNM insha allahu tacaala si dhaqso leh. maxay tahay sababta ciidamadu idinkaga tegayaan marka oo ama qaarkood Puntland aadayaan ama Somaliland aadayaan oo maalin kasta ciidan iyo hub aad leedihiin oo weliba lagu tilmaamayo maleeshiyaad aan la oranayo weliba khaatuma ay maleeshiyaad la sheeganayo maxay tahay sababaha idinkaga tegayaan horta wax Puntland naga aaday horta ma jiraan haddii si aad u jeedo maalin dhaweyta wixii telefishinada laga soo daayay inkastaada adigu afka ku dhufanin fiqi fuliya haddaad u jeedo aan kaa hororsada anigu odhaahda su-aasha aan kaa hororsada waxaa weeye sideeda bannaanba beenta waxaa la yidhaahdo lug keliyay leedahay lugtaa haddii loo bixiyana way dhacdaa baa la yidhi horta ciidan naga tegey horta ma jiro oo Somaliland u galay horta ma jiro madaxweynaha ka hadlay taliyaha ciidamada ka hadlay mas-uuliyiin badan oo khaatimo baa ka hadashay imikana waan kuu sheegaya dad laga keenay ama ciidamo laga keenay Somaliland baa la soo taagay kamarana laga qaaday dad masaakiina oo tuulada jooga oo la wada yaqaano ayaa waxaa la yidhi kamara laydinka qaadaya $50 waa laydin siinaya saasaa iyagana lagu khiyaameeyey dadkii aa la soo bandhigay saasay waxaa lagu yidhi 500 oo nin intaan ku dhamay arrimaha aad sheegayso maxaad ku xaqiijinaysaa waxaan ku xaqiijinayaa annaga ciidamo nooma joogaan sidooda bannaanba waxaa la yidhi ciidamaa u joogay halkan ciidamadii u joogay baa yimid annaga sideedaba fiqi fuliya ciidamo nooma joogin ciidamada iyadu rugay leeyihiin oo lagu yaqaano rugihii ay joogeen iyo saldhigyadii ay deganaayeen ayaanu ku xaqiijinaynaa waxaan kaloo kuugu xaqiijinayaa taliyaha ciidanka iyo taliya ku-xigeenadiisa iyo odayada iyo isimada iyo siyaasiyiinta waxgaradka reer khaatumo telefoonadoodan ku siinayna haddaynu la wada hadlaynaa taasaa ku cadaynaysa inay arrintaas waxba ka jirin hagaa qolyihiina hadda dhowaan ku-meel gaarka ahaa oo hadda xilku ka dhammaanayo siyaasiyiintiina waxaa jira warar sheegaya inaad ku kala aragti duwantihiin siyaasadda hadda oo dhinaca waagi hore heshiiska in maamul la sameeyo qaarkiina hadda aad ka soo horjeesateen ma jiraan arrimahaasi sideeda bannaanba maamul ama dowlad hadday jirto ama qoomiyadi jirto ama kuruub jiro fikirka waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxa qoraya aan lagu kala duwanayn aan kuu sheegaya waxa weeye annaga oo aan ku kala duwanayn waa horumarka iyo jiritaanka khaatimo state kuma kala duwanin waa maxay marka waxa aad raadinaysaan hadda annagu waxaan raadinaynaa waa wax iska basaaran annagu waxaa jira Soomaaliya maanta waxaa ka jira waxa la yidhaha federaal shuruuduu leeyahay gobolluu leeyahay qoomiyaduu leeyahay Soomaalida sideeda bannaanba qabaa'il bay ahayd qabaa'iladii jiray baynu doonaynaa inaynu u samayno xadaaradii ilbaxnimo u samayno oo ka gudubno heerkii qabiilka oo aynu noqonno dowlad wada noolaansho iyo isdhexgal aynu samayno waxa qori annagu aanu doonaynaa waxa weeye ee aanu samaysanay dooni mayna waanu doonnay waanu la samaysanay inaanu dhulka iyagii ka samaysana maamul ciddii ku soo biiraysa ma aha deegaanka uun reer khaatumo ma aha reerka la tuhmaya laleeyahay waa dhulbahanta keliya ma dad badan baa ka tirsan 4-5 qabiil baa ka tirsan oo Soomaaliya iyo khaatumo wada dhistay kuwa kalena way ku soo biirayaan oo waanu sugaynaa insha Allah shirkan imika aanu qabanayna bay ku soo biiri doonaan haddii aan laydmo cid kasta oo Soomaaliyana wuu u bannaayo ku soo biiro aakhirkana waxaan rajaynaynaa Soomaaliya waxay la heshiin weyday waxa weeye waa daacad la'aanta inaanu arrintaa daacad ka nahay Soomaalinimana aanu ilaalinayno bridge-ki isku xidhayay koonfur iyo waqooyina annagu aanu nahay Soomaalina halkaas isugu imanaysaa nin walbana waa furantay haddii aan la baxo siyaasiyiinta Somaliland iyo waliba madaxweynaha Somaliland hadda ka hor markuu ka hadlayay shirkii maamulkan ku soo sameynayseen ama madaxweynaha Puntland labadaba aan soo qaatay dhamaantoodba waxa ay idinku dhaliilayeen inay yihiin kooxo yar oo qurbaha ka yimid oo raba fikir iyagu leeyihiin iyo jaranjaro ay doonayaan in mustaqbalka madaxnimo Soomaaliyeed ama meelo kale ka raadsadaan inay rabaan shacab nabada inay dab ku horiyaan deetana ujeedooyinka ku fishadaan arrimahaas oo dhan eedahaas maxaad ka leedahay waxaan ka leenahay horta waxa la reer bariga waxay yiraahdaan hebel baa saa yeelay hebel baa saa yeelay markaas la yiraahdaa aala tahay iyaga horta aala tahaydii weeye in ay aragtidooda sidaa u cabiraan laakiin reerkan ama khaatuma state dee koox yarna maaha reer yarna maaha dal yarna male dad la yaqaanoo taariikh lahoo dhaqan lahoo daraawiish lahoo weligii soo jireena weeye
sidaa uu yahay unbuuna imikana ama dhaqan ha noqoto ama aqoon ha noqoto ama siyaasad ha noqotee uu u jiraa marka dee iska hadlow inay gari ninkii ku sheega waa koox iyo ninkii 10 nin ku sheega dee isagay taqaanaa nin dagaal naga dhexeeyo oo aanu isdilay wuxuu ku hadlayo ha ku hadlo idinka laftigiina dad ma caburinaysaan dad rabitaankoodii ma ka janjeerinaysaan iyagoo waa tan de khaatumo aad hadda dhowr jeer ku celisaa tiri waa u dhan yihiin dad badan baa fikirkan diidan oo ama qaba in puntland lala joogo qaarna somaliland lala joogo waxaan ogahay baa jira anigu reer khaatumana ogyahay ninka jooga maanta hargeysa ee wasiirka ka ah matalan baynu soo qaadanayna mabda ahaan ulama joogo dan buu ula joogaa dan tiisaa meesha gashay dan dhaqaalu ula joogaa weliba dan kale ulama jooge sidaa darteed nin waliba waa khaatumo matal ahaan maanta haddii arrin yar oo farxad gelisa shacabka reer khaatumo ay ka dhacdo khaatumo nin waliba ka jooga farolo la jooga iyo ka siilaanya la jooga mid waliba teleefon buu kuu soo diraya uu ku leeyahay waanu ku faraxnay waxa aad samayseen ee halkaa ka wada taa macnaheedu waa maxay mabda uma joogo ee wuxuu u joogaa dhaqaal uu joogaa dhaqaalihiina annaga u hayno oo siinayna haddii alla idinku ma aaminsantihin inaad qaar laftigooda cadaaladooda aad ku tumanaysaan maya annagu nin reer khaatumo ah cadaaladiisa ku tuman mayno waa loo dhan yahay waa dimuqraadiyad weeye doorashaanu qaadaynaa ninkii la doorto ayaa ka soo qayb gelaya kaasaana xukumi doona madax ka noqon doona soodigan lascaan tegi la oo mar kasta dhahaya dagaal baan ku qaadana idinkoo nabad heli karin wada hadal ka gashaan maya waa kala laba weeye arrinta laascaanood horaan kuugu sheegay xoog baa lagu haystaa baan ku yidhi xoog wixii lagaaga qaadana xoogun baa lagu keensadaa taa xilligeeda aan gaadhin haddii alla idmo hagaag ma jirtaa wax wada hadallaa oo hadda ilaa hadda aa wada furteen somaliland ama puntland sida banaanba annaga imika puntland ole na dhex yaalla imika ma jiro sababtu waa maxay way rumaysan yihiin dhulkan in khaatuma leeyahay duulaanna kuma qaadin ciidanna kuma soo delin magaalana may qabsan waxa dhibaatadu imika na dhex taallaa ee tooska noo dhex taallaa waxaa weeye waa reer hargeysa wey reer hargeysa xooggaa ay ku qabsadeen dhulka ay ku haystaan taa weeye ta aanu arrinta iyadu ay u dedan tahay meel taallaa weeye ta annagana laga sugayo shacabka iyagu naga sugayo ee reer khaatumo naga sugayaan waxaa weeye dhulka iyaga sidii looga xorayn lahaa ee looga kaxayn lahaa dadkaa kusoo duulay ama burcaddaa kusoo duultay cadowgaa qabsaday ma haysaan fikir aan dagaal ahayn oo nabad ah oo is leedahay xal baa lagu gaari karaa amuurtaas xal lagu soo afmeeri waxaa lagu soo afmeeri karaa siilaanyoo kala baxa ciidamadiisa kala dhaqaaqa ka saara ayaa lagu soo afmeeri karaa taas weeye ta dhammayn kartaa khilaafka annaga iyagana dhex yaalla wixii u yaalla ee ciidana maleeshiyada ay keeneen meesha ha kala bixeen dhulka iyaga siyaasiyiinta laftigoodu waxay aaminsan yihiin inaan waxba laydinku aamini karin maadaama laftigiina tii ujeedooyin badan ay iskugu jirtaan soo taasna meesha caqabad imaan karta maaha taa ma rumaysay saadiq anigu taa ma rumaysni waxaanu daacadu nahay dalka yaga iyo dadka yagaan daacadu nahay kitaabna ku marnay kuna dhaarannay una dhalannay ubadka yaguna u dhashay mustaqbalka yaguna uu yahay waa dhulka yagii wey iyo dadka yagii daacad baanu unahay daacad baanu u noqonaynaa kii yimaadaanu la shaqaynaynaa oo daacad kula shaqaynaynaa haddii alla okay aan dib ugu noqno marka shirka September dhici doona iyo barnaamijyada cusub ee aad doonaysaan inaad wax badan aad hore u maraysaan waa maxay qorshooyinka cadcadaas dhiga kale khaatumo way la soo bixi kartaa mustaqbalka iyo siyaabaha kala duwan aad doonaysaan doorashooyinkan kala duwan aad u qabataan taas barnaamijkeedu waa cad yahay dowlad goboleed kasta marka la dhiso waajibka ugu weyna saaran horta waxa weeye dhulka uu leeyahay ee dadkaasi leeyahay ee loo xil saaray ee loo magacaabay inuu nabadgelyo iyo barwaaqo u horseedo deris wanaag inuu sameeyo nabadgelyo inuu sameeyo annagu sidayadaba degaan ahaan ama dhaqan ahaan waxaanu caado u leenahay inaanu nabadgelyada jecel lahay ammaankana jecel lahay derisyadayada nagula nool iyo qabaa'ilka kale ee soomaaliyeedna aanu si magac iyo sharaf leh ula dhaqanno ilaa aadan iyo xaaway soo taagnay taasiyo taariikh aan la ilaaweynin weye cid waliba ay taqaano tiin baanu doonaynaadoo maamula inaanu samayno oo aanu maamul ku dabaqno horumarinna aanu gaadhsiino dalka yaga derisyadana aanu wanaag kula noolaano waa intaa weye annaga mabda ayagu soomaali weynna aanu nahay ilaa iyo maanta aanu ilaalinayna calankaa soomaali leedahay inaan soomaali kala go-in isku midna ay noqoto haddii alla
hagaag dastuurka Soomaaliya haddii aan ka soo qaabo sidaad hadalka u dhigayso dastuurka Soomaaliya hadda waxa uu gudbay heer federalism oo tahay gobollo ayaa hadda Soomaaliya noqon doonta sida la rajaynayo waaba tahay dastuurka lagu heshiiyay gobol iyo laba gobol wixii ka badan ay maamul goboleed leeyahay waa noqon karaan boqolada Khaatumo inay shuruudaas buuxin karaan ها way buuxisay wayna buuxisay matalan imika Puntland oo kale markaynu ka soo qaadno 3 gobol bay ahayd gobolka bari gobolka Nugaal iyo gobolka Mudug buu ahaa gobol kale lagu daray oo la yiraahdo gobol magaalada maxay ahayd tooyeen karkaar yaa lagu daray ka marka Puntland ay sharciyeysatay ee la isla ogolaaday inay gobol noqoto anigana buuhood la iyaala degmada Cayn baa ii taala degmada Cayn waa gobol weeye waliba karkaar ka dad badan weeye kaasa anigana meel ii yaala saasan aniguna ku noqonaya kii buuxiyay shuruuda ku noqonaya hagaag su'aasha kale raaliga aan ku noqdata waxa kale oo dowlad goboleeda oo la yaqaana galmudug iyo mudug maxay ahayd baraxli oo degmo ka tirsan xaafad ka tirsan gaalka ayo yaa dowlad goboleed oo la yaqaana marka anigoo intaasoo dhulale iyo intaasoo dala hilmaamin galmudug waa galguduud oo dhan galmudug magaca sida uga dhawaaqayso ku gartay de galmudug waa meeqa magaalo okay intaasoo dhan marka haddii xaafadi noqotay dowlad goboleed anigoo oo dhowr gobol leh maxaan u noqon waayay shuruudaha waan buuxiyey waana ka wada hadalnay dowladda dhexe maxaad ku wada hadashay dowladda dhexe dowladda dhexe waxaan ku wada hadalnay Khaatumo inay tahay state ka tirsan dowladda federaalka ilaa hadda kama hayno qoraal amaba statement ay soo saareen ama madaxda dowladda federaalka oo arrimaha ka hadlay ma waa laga hadlay arintaas aqoonsi bay leedahay warqadii aqoonsigay leedahay waxay leedahay xeroosaadkii bay leedahay macaamilkii bay leedahay wada hadalkii iyo wixii naga dhexeeyay bay leedahay arintaa annaga iyo dowladda dhexe way dhammaatay arinteedu wax laga murmayana ma waa wax iska cad cidii doonaysana waanu siinaynaa haddii alla idmo dukumentiyada hagaag annagoo soo gaarnay gabagabada barnaamijkeena martida Kalsan hadalkaaga ugu dambeeya maxaad u soo jeedinaysaa dadka Soomaaliyeed ama Khaatumo ama dadka walaalaha ee nabadda doonaya haddaadii ogolaato siyaasadda xagga la iska dhigayo laga raacayo dadku wada degan yihiin beelay wada degan yihiin waxaa ka muhiimsan wada noolaanshaha maxaa is leedahay kulamada ugu dambeysa nabadda gebagabada inta aadan gaarin waxaan jeclahay laba arrimood oo yaryar inaan mid walba aad iga raalli aad in yar iga siiso mid waxaa weeye waa markabkii maalkii dhaweeyay raashinka mucaawanada u siday reer Khaatumo ee uu celiyay maamulka Puntland uu celiyay taa waxaanu aragnaa arinta iyada ah arin aan filayn bay ahayd waxaase noo soo baxday maamulka Cabdiraxmaan Faroole in uu cadowtinimo badan u hayo maamulka Khaatumo state taasuna mid aan filayn ma waxaanu kala ognahay dadka reer Puntland ee shacabkii arintaa inuusan kala socon oo ay ka dhiidhiyeen siyaasiyiintuna ay kula soconin arintaa iyada ah waxa weeye mid si gaar ah noo taabatay aanana garan ujeedada uu ka leeyahay Cabdiraxmaan Faroole ahna mid taariikhda lagu xisaabtami doono taa intaasaan doonay inaan ka idhaahdo arinta kale aan doonaya inaan ka idhaahdo waxa weeye waxaa jira dad fara badan oo kambaniya ah oo la siiyey shatiyo ama warqado la yidhi batrool baad ku baaraysaa saad la socotaan dalka ama Khaatumo state waxay ka mid tahay meelaha calaamadaha ugu waaweyn ay saaran yihiin ee batrool baarista horeyna looga baaray adduunkana laga yaqaano waxaan u sheegaynaa adduunka waxaan u sheegaynaa dowladda dhexe ee federaalka waxaan u sheegaynaa maamulada cid aan Khaatumo wadanin oo raalli ka ahayn oo ayan iyadu u ogolaanin inay dhulka reer Khaatumo shidaal la ka baaray imanna karin talana ka fuli karin cidii keentaana ay guuldarro kala kulmi doonto sababtu waxa weeye waa inay annaga nagala tashataa oo tidhaahdaa maxaynu ka yeelaa arrintaa tala la'aan maya nin waliba isaabta federaal baa le federaalku waxa weeye gurigaaga adaa u taliya sharcigaan ku soconnaa nidaamkaan ku soconnaa timeka ayaa inagu yar marka maxaad waxaan leeyahay Soomaali waa Soomaali waxayna jiri doona wax la yiraahdo Soomaaliya jiri doona Soomaali ma kala go'ayso mana kala tagayso meel lama aadayso waxaan leenahay hal la raadiyo
wada noolaanshaha iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed ha la raadiyo sharafta iyo magaca ha la raadiyo ha loo daneeyo hooyada miskiinta ah iyo ilmaha yarka iyo kuwa badda ku daadanaya iyo kuwa cadowga gilgilaya meel ay ku noqdaan iyo meel aan u dhaqaaqin midaan ay jirin waxaan ka codsanaynaa in loo daneeyo Soomaaliya xukunkeeda iyo taladeedana loo dhiibo ciddii ka bixi karta ee Soomaalinimo iyo dadnimo ku jirto reer Khaatumo waxaan kula dardaarmayaa inay dhammaan ka qayb galaan shirka Taleex ee lagu qabanayo inay dhammaan ka qayb galaan hil iyo hooba ayaan meel kastoo joogaanba waad mahadsantahay aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Ducaale Cabdi oo ah wasiirka amniga ee dowladda maamul goboleedka Khaatumo State isla markaana ahaan jiray sargaal ciidamadii dalka Soomaaliyeed aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa waqtiga aad baan kaaga mahadcelinaynaa barnaamijkeeni martida kala sanna intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkan mid lamid ah inta aan ku gudban doono daawadayaal waxaan ku dhaafinaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh